xarunta maxkamadda sare ee gobolka Nowdal waxaa maanta ka dhacay dibadbax ay sameynayeen haween ay caruurtooda muddo ku xiran yihiin gudaha magaalada Boorama kuwaasoo la sheegay in la soo qabtay kadib markii ay ku dhex dagaalameen xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Boorama haweenkan ayaa waxay cabasho xoogan ka muujiyeen baxda cadaaladda ee gobolkan waxaana iyagoo ka hadlaya cabashadan hadaladooda kamid ahaa maanta waxaan u soo diyaar garownay arday loo soo diray wadaadana dawladii waxay ka timid wajiga waxaan naga soo xidhay dawladda dadna soo dacweeyay wixina lagu sheegtay waan iska bixinay waxa kulay wax awlaad wax ma loo haystaan ma jirto hadda darina awlaadeedii ku xiran yihiin koob iyo 3 cisho awlaadeed meesha ku jirta in maxkamadda lama keenay dacwad lama weydiinay nina dambigiisa lagu ma qaadayo waxa naga xiran 28 nin oo yaryar dadba markii hore la isku laayay markii dambana habeennimadii wax la argushay magaalada markaasi markii dambe aan la kala saarin oo aan loo kala eegin ku jiray ku kale ayaa xaafadooda noo isku rogo waxaan ku caruurtoodii maxay saddeena noo yarar la xaabiyay oo la qaaday ina kay koox kuma jiro ku badna ma ciyaaro ku bad ciyaarin ayaaba lagu soo dacweeyay in yar oo ay iskhilaafeen oo iscaayeen anigu ina kaygu yeedho xaafadii ku ay habeenkiina la seexday aroortii waxa la dul keenay koox iyo gaari booliisa war ina kaygi soo saar balin kooxdu ku jiray kooxeedu kuma jiraan ku anigu waa lagu leeyay nabraas ay u yaala ya kooxdaas dibadda kuma jiray aniga kiiba ina ka shorti baa loo qaaday iyo garan ana garan iyo macus baa loo khamiistoor cadalka dhacay ay qaateen saxeexan maxaa laga nadul dhigay 17 jir baa naga xidhan 16 jir baa naga xidhan 17 jir baa naga xidhan mustaqbal bay ka lumayaan una jirka rabbi ka baqan ilaahay ka baqan rasuulkiisa ka baqan sidoo kale xeer ilaaliyaha guud ee gobolkan ayaa inoo suurta gashay inaynu wax ka weydiino cabashadan loo jeedinayo bahda cadaaladda ee gobolkan oo ay jeedinayaan haweenkan caruurtooda muddo ku xiran yihiin gudaha magaalada Boorama nimankan waxay ku xidhan yihiin dambiye istaba jooga oo ay galeen ilaa iyo 4 goor ayay intii sanada kan dhamaaday iyo ayaamahan u doonayeen awalka sanadkan waa ilaa 4 goor ayay kooxo yar oo 18 jir iyo 19 jir iyo 21 jir isugu jira ayay dambiye kala duwan ay galeen oo ay ka mid yihiin carnal violation without consent with robbery ay dhacboobayaan xoog ku qaadanayaan gabdhaha la tagayaan baadiye iyo inay dukaamo iyo guriyo ay shiidaanin oo dad ku laayaan iyagoo kooxa aan laakiin qabyaalad ahayn ee kooxa group ah waxa weeyaan markani waa markii afraad 3 goor ayaan ka sii deynay maxkamadda waan uga naxariisanay dadkii dhalay laakiin kuwa kan naagaha dhalay oo iminka 15 bari bay xidhan yihiin mandheera inay tagaysan dib adana sababtu waxa weeyaan waa la soo qabtaa oo sii deynaa waxa la bixi kiisaska la galeen rikoorsan dib u noqday وهذا الجواب وهذا الجواب ده هو يقوم بأنا إلى الموطن دولة ما تنسى ليش تعين كل بدل لها كل بدل يضاهي لحظة مع صداتي المليدي سبرمش وحال صار سوالتي دولتي معلميتي عبد الفتاح أحمد هدواناق نيوز مقالة بورما